dhawaada dhamaantiin baadaan soo dhawaada salaan aad iyo aad baan dhamaantiin baydin salaamaya Ramadan Kareem baan idin leeyahay dhamaantiinba Ramadan baa lagu socdaa sabti Ramadan baan galaynaa cafiya saamax dhamaantiinba alla isu saamaxo qalbiyada hal isu saamaxo bir Ramadan baa ku jirnaa insha Allah dhamaantiinba aad baan idin wada salaamaya soo wada dhawaada caawina farxad Cabdimaalig la soo dhaweysaan Cabdimaalig maanta la soo daayay xoriyadiisa loo soo celiyay mahad gaar waxa iska la madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo cafis u fidiyay aad iyo aad baan madaxweynaha u salaamayna Jamhuuriyadda Soomaaliland cafiska naxariista leh oo Cabdimaalig u fidiyay dhamaantoodba mas'uuliyiinta aad iyo aad baan u salaamayna farxad waxay noo tahay Cabdimaalig maanta inuu yahay xoriyadiisa uu helay maanta Cabdimaalig inuu xoriyadiisa buuxda haysto ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii waxaanu leenahay Cabdimaalig soo dhawaanu leenahay Ramadan Kareem baanu leenahay dhamaantiinba aad iyo aad baan u salaamayna maanta farxad yahay wallahi markaan Cabdimaalig wala soo daayay saan farxay ma malayn kartaan marka farxad baan ku jirnaa bir Ramadan baa la soo galayaa berito waa Ramadan ما سبت دوار رمضان بريوات شمعة سبت دوار رمضان كريم بنو لنا عمبلينا وحنو درينا عبدمالك بنو درينا إنه بشهر رمضان عبدمالك إنه لقاته عادي أب بنو فرح سنة دمانتي بسوما حقدر الوحدة وانا إن حقدر الوحدة إن حقدر الوحدة وان أغناي لكن عندنا قبل يلا وصلنا دم بالو حكومة وعارف لو في دي ولا سودا يرتوا حد عادي عدوين سبيشال تانكس waxay iska la madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u fidiyay cafiska Cabdimaalig u fidiyay wixii lagu xukumo dhan jabiyay oo mataqaana cafiyay ayayna aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa farxad weeyaan muhiimaduna waxa weeyaan in Cabdimaalig maanta xoriyadiisa buuxda uu gacanta ku haysto maanta uu inala joogo aad iyo aad maatidii iyo masaakiintii baanaydna uu Cabdimaalig maanta u soo baxay bisha Ramadan darteed يعني كقيب قادني وعاوني ومتقناي waxay ku afuro lahaayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen intii bad mutaqan u taagan maanta xoriyadiisa ay loo shaqeynay samataraha xaqdara lagu xiray wallahi xoriyadiisa loo soo celiyay laakiin wax miimada ay tahay maanta in xoriyadiisa haysto Cabdimaalig taas waan ku faraxsanahay runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay hambaliyaynu leenahay Cabdimaalig soo dhawaadaynu leenahay I think so أنا عواد وده فرحتني دمانتي بعبدمالك أنا سود ويسان ترى كسر دو حرية عادي حرية قالوا هدي حرية اللي إسكا قادوا بلاي والله هدي حرية اللي إسكا قادوا قفنا ما أقوله one day إنه تشال قلو قفنا ما أقوله يعني قف كراليه one day إنه تشال قلو ما تشيرو دون تشال كل باتوين كلها هنو ونفهم كرنا ونقرن كرنا مالك اللي واحد كسر قاعدة أنت تقشيت قولك قول كمدين تدقشي أديكوا بلا تلفون أديكوا بلا تيفي أديكوا بلا وحبا بالمركي اللي يقفل أنت تسكح لده هالكاتشوك أدوك قبل أورس هالكاتشوك دبتنا وفهمي كرتا حريته قيمها اللي هذا وتفهمي كرتا أدو اللي بيسكفور كرا كصبيحي كرا ولا أدوك يسحيد أنت أدوك وحول بيسك قاعد قول كإسكلي يسكح لك كتير دبتنا marka wad fahmaysaa xoriyadu qiimaha ay leedahay wad fahmaysaa yani qof xoriyadiisa laga qaado jal gurudunba fahmi kara yani xoriyadu qiimaha ay leedahay qiimo aad iyo aad weyn bay leedahay marka Cabdimaalig ku soo dhawow aan leenahay xoriyadaadi ku soo dhawow in Ilaahay ku soo celiyo Ilaahay gacanta ku soo galiyo inta shaqada ku jira ana shaqada ku jira maanta leeso sheeg inta shaqada ku jiro dhan waan sugi kara laa inta soo noqonayo in bala huwinay in la soo daayay in kala Cabdimaalig in la soo daayay ولا سوداي الحمد لله رب العالمين إن أدي أدون فرح سنة هاي over the moon لكن وحنا فرح سنة أنا جا عندها صدق حنا اللي سوداي وكلام قالنا سافرين عندي بهذا أنا فرح سنة أركا وحنا لنا Cabdimaalig سودو ونلنا هاي فرحد نقول قادر وده أنت فرحد نقول عيد فرحد ومدة كل دماشات إلهينا مرضا بحرية هذا كما قاعدة يعني قفك الحرية شيء اللي قلنا حق ضر له حرية
de waqof kartile oo dadkii ka dhex muuqda oo mataqaanaa isla markaana indhaha lagu hayo oo isla markaana la ilaashanayo oo marba dad maqashid marba qofba mataqaanaa jeelka la dhigay oo la xiray oo la xumeeyay oo la hadda aragti waa qof kulliba kartile oo dadka wax dhaama oo isha lagu hayo oo dabatana dhaqdhaqaaqiisa la ilaalinayo weeyaan marka in Cabdimaalik halkaas ay ka aragtaan inuu yahay Cabdimaalik qof dadka inta dheer inuu yahay sanadkii imsa jeer baa imka la xiro la cadaabay oo la mataqaanaa la cadaadiyay mataqaanaa oo haddana intaasoo dhan uu samreeyay maatideena iyo dadkeena uu caawinayay wanaag uu ka shaqeynayay inagu mataqaanaa uu ina gargaarayay haddana dad adiga arka ta ku dhacaysa adiga arka marka haddaad aragtid qof la cadaabay haddaad aragtid qof la xumaanay haddaad aragtid qof la caayay haddaad aragtid qof mataqaanaa la daba socdo haddaad aragtid qof toosh kala daba sito waa qof dadka wax dheer weeyaan Soomaali maxamed oo dhan hadda waa isla ogtahay Cabdimaalik inuu yahay haliyay Cabdimaalik inuu yahay nin Soomaalida inta dheer inuu yahay haliyay Soomaalida oo soo baxay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay leenahay soo dhawow mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow farxad bay noo tahay maanta inaad adoo xorriyadaadii haysta aad nala rabadaanta nala qaadatid bisha barakaysan oo aad nala ciidid bisha barakaysan alxamdulillahi rabbil caalamiin dhammaantiin buu soo wada duceeyay Cabdimaalik أنا أركي هذا كوهم بليان يلا عبد الملك بقى حريتي سهلة لا صوت داعي ونسوا دعية إن شاء الله دمانتين بنسوا الدعية أنا كقول إذا نسوا الدعية أنا كوين نسوا الدعية ننام برمضان بلقليه ولا دعاء السنية إلهي أنا وذا حافظه دمانتين بإلهي أنا وذا حافظه برمضان بنكوتشنا إلهي قبيلته هاي نجا مسحو إلهي حمانته هاي نجا مسحو إلهي استبقلك هاي نجا مسحو إلهي عنصرنا ماذا هاي نجا مسحو عنصريين بيننا سومالي هدينو هاي وحن نهاي دادك وقول عنصرية سن بيننا هاي سومالي هدينو مركا إلهي عنصرنا ماذا هاي نجا مسحو آمين ده يا بشهر رمضان إن إلهي عنصرنا ماذا هاي نجا خرق هذا دونالد ترامب كلا شيء iyo maxay tahay Hitler kala sheego iyo dadka cunsuriyada ma taqaanay taariikhda ku galay lagu saxiixay wallahi billahi tallahi Soomaali waa ka wada cunsuriyaysan laakiin sima oga Soomaali sima oga way Soomaali waa bad iyada laftigeedii dhexdeedii iyadu 24 ka sawata iyada dhexdeedii laftigeedii iyadu cunsuriyaysan ee qabiil cunsuriyadani oo qof cunsuriyadani ee ashalay toole arkayseen wixii ka dhacayay magaalada Hargeysa wixii ka dhacay inanba nin guursatay heerkoodii baa soo qabtay way xilxireen waxay inanta ku sameeyeen waad arkaysay because of what waxa lagu sameeyay inantaasi ay tacabka iyo dhibaatada ay u mareys waxay ahayd yani de takor nin ay guursatay qabiilkiisana raali ka ahayn ayay ahayd waa wax aad iyo aad looga xumaado waa wax aad iyo aad mataqaanaa loo shame oo mataqaanaa laga khajilo وفول حمو هدي أنا دين أركين أن وذا أرجنا إنديه أي نفريهن مركب حين ودانا هتلر إلهي بان إذا كل شيء هذا كان ودينا يبر رمضان بالقص على هتلر محين ودانا هتلر وحلالي وحين ودانا متشرت بقص نكاس هو قبيل كا أي إن أنت تعبك أيكم مرتو هيركودي دواتها كمر هذه هيل كريان قرطة بكشر لاين ويدل لاين ويقارع لاين because of ninkaas qabiilkaasi guursanaysa laga yaabo haday nin gaala oo maxay tahay diinta islaamka ba aan haysan ama nin madow oo diinta islaamka ba haysan haday u keen lahayd online ninkana rabaan guursanaya laga yaabo inay u ogolaan lahaayeen waliba ma taqaanay ku farxi lahaayeen waliba maal iyo wax walba ay ugu diri lahaayeen raacin lahaayeen laga yaabo laakiin ka islaamka ee Soomaaliga ee mataqaanay diintii la sheeganaya ee haduu doono kaba mataqaanay diintii kaga adag ee haduu doono mataqaanay sinjigi Soomaaliya iyo farcinkii Soomaaliya halkay ka soo baxday anigu gabooyo waxaan u aqaanaa inuu yahay Soomaali asalkeedii Soomaaliya halkay ka soo baxday ay gabooyo ka yimaadeen runtii waana dad aad iyo aad u dun wanaagsan aad iyo aad baan anigu runtii aan qadariya uga dambeeyo dadka waa yani dabeecadooda wax qabadkooda kartidooda intaba hadda eegtid yani Soomaali gaadhay ma jirto waa dad karti leh waa dad dabeecad aad iyo aad wanaagsan leh oo la dhaqmi kartid waa dad aanadin isdiideynin waa dad ma taqaanay dantooda
ku filan waa dad dantooda yaqaano dantooda waxaan ahayn aan mataqaanaa aan ku foofin waa dad aan jeclayn isku dirka iyo dagaalka iyo dhibaatada ay 24 saacad Soomaalida kale ay faraha kula jirtay ku fogantahay wadadaan aqoonin marka waa yani asalkii Soomaali halku ka yimi aan ka soo farcanay ayaa gabooye dadka la yiraahdo waa dad aad iyo aad u qaaliyo oo Soomaali maxamed maanta dadka ugu qaalisan ay gabooye number 1 ka yihiin marka dadka sida caankaas u qaalisan ee aynu aragno ayaa ma taqaanay waliba yani si yaro masqaal darati xun oo hadal yar xun oo daciif iyo wixii inanta imka lagu sameeyay aad iyo aad baan ugu xumahay waan ka raali gelinayaa waan ma taqaanay waana ka tacsiyeynaya dhibaatada halka ka dhacday dadku isku wada mid maaha dadku isku wada maskax maaha dadku isku si uma fakaraan runtii inantaana waxaan leeyahay ninka lagu saa loogu galay dhibaatadaas ay ku soo martay ee ay jeclaatay ee doonaysa inay guursato ha guursato hana raacdo ilaahay ku khayr qaba oo mataqaanaa ay ku baraaran ilaahay ha siiyaan leeyahay ku ayada ilmaadeen cid ugu xiga ama ka dhinaceeda taagan la leeyahay waa isku sinji ama waa isku qabil ama waa isku abtirsan ayuu boqolkaasi uga fiican yahay oo uga karti wanaagsan yahay oo uga wax qabad wanaagsan yahay oo ka soo dhaweyn fiican yahay oo uga mataqaanaa wax walba dhinac walba hadii laga eego marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan uga raali gelinayaa aad baan uga xumaaday markaan arkay runtii ku soo noqon Cabdimaalik aan ku soo noqon waxaan leenahay Cabdimaalik hambaliyo leenahay Cabdimaalik ku soo dhawow leenahay yani xorriyadii ku soo dhawow hawadii ku soo dhawow leenahay wax walba laga xidhay qof la xidhay dhibaatadu qabo oo iska wada fahmi karnaa runtii oo intaas soo dhan xidhnaa waliba intaas soo dhan jeel ku jira waan fahmi karnaa marka waxaan leenahay caawa aadaan kugu faraxsanahay aadaan ku hambalyeynaa rabadaan kariim baan ku leenahay rabadaan wanaagsan si fiican dadkaaga rabadaantaada ula qaado si fiicanna insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo inaga aqbalo si fiican adigu bal guursanin gabooya walaal gabooy muxuu qabaa guursanaya walaal gabooy wax laale wuxuu qabaa ma jirto haddii ilaahay calafkaaga dhigo oo aad jeclaatid oo aad aragtid qof wanaagsan yahay lama yanaade qof allaali qofku wuxuu doonaha ahaade waa la guursaado qof muslim yahay oo mataqaanaa waa shahaadinayo siiba uu waliba qof Soomaali uu yahay de waxaad u sii weydiisaa u sii dhaadhacdaa tahay aan qalad baan baa arkaa runtii marka gabooy wax allaali wuxuu qabaa ma jirto haddaan arko nin gabooyo wanaagsan aan qanciyo wahada wasahlan de waan guursanaya laakiin si gabooye weeyaan inaan kaga tagayn baan hubaa runtii anigu adinkuna saas oo kale baan filaya adinkuna codada iska wada saaraan in leeyahay guursada hablaha maxay tahay ansuriyada ka daaya ansuriyada faraha badan la idinku jirta iska daaya Soomaali iska daaya Hitler baan wadanahay Soomaali waa Hitler wallahi Soomaali waa Hitler wallahi billahi Soomaali imkum baan ogaaday in Soomaali Hitler tahay wallahi ansuriyada isa la suudeeyay بومبونين ما هي وارون والله وارون ويان عنصريين ويان يد بالصومالي عنصريين تاي والله وعنصريين يجي دحدودي بايس عنصريين iyo qabiil bays عنصريين yaano mataqaanay family to family wala soo عنصريين yalla soo ila dadkan white iyo black baba soo عنصريين dadkan waa black iyo white dadkan soo عنصريين yaano oo halkaas عنصريين ka bilowmataa laakiin hadduu qofku waa yahay waa family-goodii ma cusradeen iyo soo dhaweynaya laakiin hadduu qofku black yahay markaa bay cunsuriyadu bilowmataa marka laakiin waliga yaalahay ma arag dad isku wada dhiiga dad isku wada maxay tahay midaba dad isku diina dad isku afa dad ilaahay yani meel ka wada abuuray oo haddana yagii cunsuriyada intaa leeg isku haya oo sidii isu dilayeen sidii isu xasuuqayeen sidii isu leynayeen saldhigi waaye una san waaye adduunyada Soomaali mooyaane ma aragnayshin kale yani wadankooda wadaga waa iyaga way dagi waayeen maxay tahay adduunyadii kale ay ku foofeen way ku dagi waayeen meel ay degayaan ma haystaan waayo sinji dhigiba waxa ka galay wax la yiraahdo
sinjinacib way isnacbiin aad iyo aad bay isu nacbiin cunsuriyad fara badan baa ku dhex jirta marka waxaan leeyahay isu fiirsada walaal isaaq waa gaalo walaal isaaq gaalo markuu noqday adiguna gaal baa tahay xuseen inanka leeyahay cali diiri wuxuu leeyahay walaal isaaq waa gaalo isaaq markuu gaal noqday adiguna gaal baa tahay waayo reasonad ummadan oo mataqaanaa intaasoo milyan ah aad ugu leedahay isaaq waa gaal aad ugu leedahay ayaanan ba fahmaynin qudhaad waad xanuunsanaysaa dawaad u baahan tahay bil rabadaan baa lagu jiraa dawooyinkaagii doono oo dawooyinkaagii soo qaado ummad sheekh leh oo mataqaanaa suldaan leh oo caruur leh oo dumar leh oo cid walba leh oo muslina oo shahaadinaysa oo tukanaysa ayaad intaad halkaasoo fadhiistaad leedahay isaaq waa gaalo aad leedahay marka aad iyo aad baan uga xumahay hadallada caynkaas oo kale ah ee ay isu gudbinaysaan iminkaan idin sheegayaan idinku lahaa cunsuriyad meydhan baa tihiin waxaad tihiin mataqaanaaye dad aad iyo aad u xanuunsanayo caloosha ka wada xanuunsanaya ayaa aad iyo aad ugu badan inkastoo dad wanaagsan ay jiraan laakiin dadkii wanaagsanaa waxa qarinaya oo ka fargaraynaya oo mataqaanaaye meel ay iska taagaan la intii xumayd يعني انت حمد با ميل walba saa u boodaysa intii xumad ba wax walba ka fargaranaysa intii xumad ba wax walba qasaysa intii xumad ba wax walba dabiibaysa intii xumad ba marka aad iyo aad baan wallahi billahi uga xumahay dadkii wanaagsana way fadhiyaan way aamusan way eegayeen way meel ka hadlaan bi garan laay markay arkaan waxan dadkan xun ay boodaya ee caytamaya ee wax walba soo qoraya ee dadkii cunsureedeynaya ee dadkii kala diraya ee dadkii mataqaanaa kala fogeynaya ee wax doon ku hadlay markay arkaan ay step back sameynayaan dadkii oo wanaagsanaa marka dabeetana way baqayaan marka waxaan leeyahay dadka wanaagsan come forward soo baxa dadka xunxun ee nagu batay inaga qabtaan idin leeyahay yani haddaan idin soo bixin oo aan idin hadal oo aan idin dadka xunxun inaga weecinin oo aan idin naga qabanin dee yani markaa dhulkaynu wada gelaynaa waynu wada xumaanaynaa markaa saasaynu isu wada bedelayna yani maalinba qof wanaagsanba niyadii qalbigii markuu ka dhinto waxaa arko kabacdina dee mataqaanaaye hawada gelaya oo iyagaba ku biiray odhanaya maxaad dadkan waa dad inta qof ay ku odhanaysaa soomaali maxaad kala hadlaysaa aad kaga daalaysaa waa dad waalane soomaali maxaad caynkan u leedahay waa dad caynkaasi soomaali maxaad saa u leedahay waa dad caynkaasi inta qof ee ku leh yani ka quusatay soomaalidiiba ka quusatay wallaahi billaahi tallahi waad yaabaysaa waayo maxaa looga quustay de waxaa la arkay negative midhan cunsuriyad midhan cay midhan yani xumaan midhan oo meeshasaa u booday ayaa la arkay marka saa loo eego ee laego qof la eego laba la eego saddex la eego afar la eego ee la arko yani dadkan xunxun ee meeshaysaa u boodaya ee waxbalaayo u buufinaya ee dadkii kala fogeynaya ee qabiiladii kala fogeynaya ee isku diraya ee cunsuriyadda meeshii dhigaya ee yani waxay ka helayaan wala alaanka ma aan garanay ma fahmay marka dad fara badan baa markaa ka niyad jabay magac Soomaali la yiraahdo markaa tiraadid ka niyad jabay waliba iyagoo Soomaali ku oranaya igada kuwa waan ka qustay igada ka oranaya waayo waxay uga qusteen de waxay arkeen waxana arkeen dhibaatadana arkeen marka iska daayay cunsuriyada faraha badan ee lafta iyo ruuga idinkaga jirta iska daayay xumaanta iska daayay weerarka iska daayay hadalka xun ay isu gudbinaysaan iska daayay dadka wanaagsan oo waxaan leeyahay dibadda u soo baxa iska leexiye dadka xunxun iska leexiye waayo haddaadan ku baawarkiinu bato oo dadka wanaagsan ay bataan dadka xunxun way leexanayaan way fadhiisanayaan way baqayaan ama way xishoonayaan ba at least in fara badan waxa jira wali damiirka ku sii jiro oo yani xumaantii marka ay walaaqdaan ay arkaan qaar kale oo fara badan oo xumaantii la walaaqanayana dee durbaanka usii tumanayo oo mataqaanaa xumaantii la sii waday ilaa waxan waa wax haaf weeyeen haafna wuxuu yahay haafna waa wanaagsan yahay marka hadday arkaan haafkii xumaad dad xunxun oo durbaanki tumanaya de way la tumanayaan way sii raacayaan laakiin hadday arkaan dad wanaagsan oo si wanaagsan u hadlaya haafkii wanaagsan uu soo noqonaya dadkii wanaagsan uu raacay wax wanaagsan ku hadli doona insha Allah marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin soo baxa oo dadka xunxun inaga leexiya aamusinina aamuskana aamusantiina ay shun ka daawanaysaan waan ku sii rugmanayna maalin walba intaasoo kunoo qof oo wanaagsan ayaa xumaan gelaya oo waxana ay gelayaan oo qabiil gelaya oo xumaan gelaysa oo ay gelaysa oo dhibaatadan Soomaali ay wada ay gelaysa marka inaga celiya waan idin leeyahay insha Allah waan idin salaamaya dhamaantiin ba aad iyo aad baan idin salaamaya guul iyo gobonniman inoo rajeynaya dhamaantiin ba saas ba inoo ballam insha Allah
فاهمة نجبويا وانكوا يا ديار مرتاح بكل ولا والله بالله تالله إن أنا أورني إن جبويا يعدى طيب إن أنا أورني نقف كهدوني وأنا أكسني هاي ونكرت لي هاي وشخصيا أنا ونفتي إذا أنا كهلاي أنا نقدونيو جبويا وقت جماعي رنتي والله إن أنا وقت جبويا أنا وان راعية قلا ما تهينا ما أورنيو أنا وان راعية ما دام بقى شهادني ومسلم هاي الشهادة يا مسلم يا إن سومالي إنه وياي يا تايم أورانايو مركا وان راعية لكن محيطة إن أذن كان يدين شيء دباتوين كدعية هريري هنا كدعية إما تقاناي لو سمينايو كسو هرشيستا رنتي كسو هرشيستا ما تقاناي إن إسكو هرتاغا إن بين الإساق وتاعي. ده هذيك رحت وضبطت هذيك الساق بيبقى ستابة كور نكن محمد ديري لا سوى بلوجري حسين علي ديري حسين علي ديري نوين يجي كور والله نكاو بلوجرين يا كور ساق بيبقى ستا كور ويكيد كتيبة واحد كيد كتيبة تونكي كيد ساق كيد إساق هاي إساق وقالو إساق بين اللي ورساق والجي بين مشاكل إساق واحد وكفي عيني هاي بإساق ما تقاناي وكفي عيني وحوين إساق لابتك هلا والله بالله قف ساق بين شجارك ميس وحوين وضاعت لابتك هلا إساق والجي بين مشاكل مركا وحيان دي بدي صادقة ساقو حمق يعني وحيان دي بدي صادقة وان بلوجري وان بلوجري وان نعسي يعني وان بلوجري ولا إساق ولا دارات ولا متقناي هوية ولا متقناي صومالي محمد ودن ماشي دونتها جوقتي dad xunna waa la leeyahay dad wanaagsanna waa la leeyahay dad mataqaanaa run sheegan waa la leeyahay damben sheegan waa la leeyahay diintana ilaahay baa inagu leh oo ina xisaabaya qofka hadduu doonayo de inuu ilaahay ka boqoto ilaahay u jeesto isagu tiisi uu ilaashado maalin noqotaba de luxudka lagu dhigayo saacadda hadday dhamaato waa dhiman marka xisaabtada ilaahay la hortagaysa qof walba buugaysa inuu isagu ka warwaro ilaahay wuxuu la hortagay uu mataqaanaa uu ilaashada ayaa mataqaanaa ay tahay warwarku adigu ka saaray waaye adiga ilaahay bay taas idin ka dhaxaysa marka inaad adigu waxa ilaahay la hortagay la kasi warwartid horta adiga taas aday shaqadaada tahay laakiin ummadan inaad tiraadid waa gaalo ummadan inaad tahay waa gaalo wallahi aqal xumay kugu tahay damin xumay kugu tahay jaahilnimay kugu tahay waliba inaad ummadan ku tiraadid waa gaalo because taas adiga lagu qoriya labadaadan garabna malaamaad ogeyn malaa'ig baa saaran already waxaad qoraysayna ee aad meesha ku qoraysayna adu dad baad slide ku xumeeyo dad baad slide malaha ku cay oo ku baalkay laakiin malaa'ig baa labadaadan garab taagan oo qorayso already waa lagu qoray ummadin adiga afkaaga kuma gaaloobayso xishood baan ku leeyahay edab yeelo ad ها marka dhamaantiin aad baan idin wada salaamaya Soomaali Maxamed meel walba ay joogto aad baan idin wada salaamaya ka Muqdisho ku nool ka Hargeysa ku nool ka Djibouti ku nool ka Gaarisa ku nool ka waan idin wada salaamaya Ramadaan Kariim ba dhamaantiin ba idin leeyahay war waan blogareeyba waan iska blogareeyba walaalo waxaan usanayaa qabiil bi kaga dhigtay moot waxaan usanayaa عذركاهين آد بنكو سلامية آد بنكو سلامية عذركاهين آد بنكو سلامية thank you very much لما انتين به ها مركا ان رمضان بنكو سوسعنا ان اسكو دعيسنين و باهنahay inaan hadalka isku badino ma fiicna cudurka iska saara idin ku jira dhibaatada idin ku jirta iska saara maxay tahay in xanuunkan faraha badan dhigi idinka galay lafii iyo urqiyada idinka galay iska saara Soomaali baynu wadanahay cunsuriyada faraha badan ee idinku jirta iska saara de qabiilkan qof walba qabiil buu u dhashay qof walba qabiil buu yahay lamana mataqaanaa taa lamana dafirayo waxaynu maanta inagu masaxayno in baabiinina ma aha wala daaradaho wala isaaqaho wala hawiyaho wala ciisaho wala gabooyaho wala cidda duntidaho قبيل بيننا لكن قبيلك والنيم ويان قبيلك لكن قبيلك وحا كوين
ka weyn jinsiyadda ka weyn jinsiyadda ka weyn waxa ka weyn soomaalinimada ka weyn soomaali baynu wadanahay isku jinsiyad baynu dad isku wada jinsiyadaynu warama aynu kala gogo'no aynu calama kala yeelyeelano aynu wadamo kala yeelano sharcigeenu kala hayna inoo kala saarnaa laakiinse haddana waxaynu nahay mar walba soomaali baynu nahay jinsiyadaynu wadaagna wax walbana waxa ka qaalisan mar walba la ixtiraama mar walba la isu soo taagaa waxa weeyaan jinsiyadda la isu soo taagaa yani dadka qaar baa ka odhanaya soomaali waa mid anigu waxaan aaminsanahay soomaali waa shan laakiin mid baynu nahay oo haya mid baynu nahay jinsiyaddii mid baynu ka wada naho dad soomaaliyeed baynu naho ilaahay geyga inagu wada abuuro ilaahay naga wada dhigay dad iskuwada mataqaanaa isku wada diira isku wada afa isku wada diina isku wada eeg ilaahay inaga dhigay nimcada koowaada ilaahay ina siiyey waa taasaana mar walba anigu qadariyaa taasaana anigu mar walba aan daba fadhiistaa waayo de ilaahay nimcooyinka uu bixiyo waa nimcooyinka ugu waaweyn ee ilaahay ina siiyey ee ilaahay gacanta inoo saaray ee aynu ka faa'iidaysan kari weyne ee aynu qabsan kari weyne ee aynu baawarkeeda yeelan kari weyne waa taa weeyaan haddaba imika waaye markaasa wax lagu meeraysanayaa qabiil baa halkan heer qabeel baa halkan heer hebel baa halkan heer kabel baa halkan okay heer hebel iyo heer hebel halkooda uba daaba haba haystaano halkooda aan ku ixtiraano halkooda ha joogaan uba daayo laakiin ma nahay soomaali ma naho jinsiyadda ma wadaagna wadada islaama ma nahay intaa aynu isku ixtiraano intaa aynu walaalan ku noqono intaa aynu ku wada joogno caydan faraha badan leh iyo dhibaatada faraha badan leh meesha ka socotana aynu iska dayno maxamuud fiifa isaaq baan leeyahay isaaq ha noolaadaan leeyahay oo daarad ha noolaado oo hawiye ha noolaado oo ciise ha noolaado oo gabooye ha noolaado oo dir ha noolaado oo soomaali maxamed oo dhanba ha noolaataan leeyahay qabiil walba ha noolaado qabiil walba isagaa ugu sharaf badan yacni qabiil xuniba ma jiro mid walba sharaf buu leeyahay mid walba wanaag buu leeyahay mid walba in xun iyo wanaagsan buu leeyahay marka ha wada noolaadaan baan idin leeyahay dhammaantoodba ha wada noolaadaan baan leeyahay sharaf baa leediin cisi baa leediin adunkuun hoos ha isu dhiginin oo ha iscaayinin oo mataqaanaaye dhibaato walba dee ha isu soo jiidinin aan idin leeyahay maqaxyaa marka wada fadhidaanba waa adinka sheekaysta waa adinka wada qosla waa adinka soomaaliya laabtiisa saara waa adinka mataqaanaa gaalada marka artaan iskaga soo cararayarda waa soomaali ee isu soo hirta saa ay isu soo hiranaysaan mar walba yacni waxa fiican ina halkan ixtiraamkeedii ka muujisaan isu soo hirataan oo ilaalisaan sinjiyadda inaa ilaashataan baan aad iyo aad u jeclahay inoo ilaaliya sinjiyadda soomaalinimada inoo ilaaliya diinta inoo ilaaliya oo diintaa iyo sinjiyaddaas ina wadaajisa oo isu keentay oo dad inaga dhigtay oo ilaahay halkaa intuu inagu wada abuuray inaga wada dhigay dadka isku sinjiga iyo dadka mataqaanaa isku afka ah ee isku diinta ah ilaahay naga dhigay inta aynu ilaahay ugu shukri naqno ugu mahadnaqno oo aynu intaa isku jeclaano oo aynu intaa isku ilaashano fadlan inta aynu isku ilaashanaan idin leeyahay dee intaasaan iskaga tegaya cabdimaaligna hambalyo kusoo dhawo xorriyadaadi cabdimaalig waan ku leeyahay ramadaan kariim ilaahay de khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ha kuloo kulansiiyo bir ramadaan baa lagu socdaa ramadaan kariim dhammaantiinba meel walba aad joogtaanba intaasaan idinkaga tegayaa aydin macaanaato soomaali waa shan walaalo soomaali waa shan haddaynu nahay haddana dad waxaynu nahay mida oo soomaali wada ah oo isku diina oo isku afa oo mataqaanaa isku wada habaryar eedo abti adeer isku wada ah baynu nahay laakiinse de shan dal ayaynu ku kala abuuran aynu kala degannahay doesn't mean markaa de carabtuba korka carab bay ka wada tahay haddana de waa aragtay intaasu dal weeyaan waa dadka isku wada diinta waa dadka carabda ku wada hadlaya waa united carab weeyaan marka inaguna waxaynu nahay united somali baynu nahay soomaali baynu wada nahay soomaalinimada aynu ilaalino ixtiraamka koowaad ka labaad ka saddexaad ka afraad aynu siina soomaalinimada haya dhammaantiin ba aad baan idin salaamaya waan idinka tegayaa intaasaan idinkaga tegayaa ramadaan kariim baan idin leeyahay dhammaantiinba
bir Ramadaan baa la gelayaa sabtada bir Ramadaan baa la gelayaa isu soo wada ducayno dhammaantiinba laga yaabaa in Ramadaan kaas oo dhan inaanan is aragnin oo Ramadaan baa lagu jiraa baday Ramadaan wax laga hadlaabo iska bayarba wadaadada iyo muxaadarooyinka la iska dhageysanaya insha Allah dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya FIFA Soomaalinnimada walaal macaani FIFA Soomaalinimada Somaliland maxaa la dhahayo walaal Somaliland baa la yiraahdaa waad ogtahay Somaliland waxba indhaha iska soo tuurin waxba ha inkirin Somaliland baa la yiraahdaa Soomaaliya la yiraahdaa Djibouti baa la yiraahdaa kilka la yiraahdaa Soomaalida NFD degan waa NFD marka waxba ay soo indhatirin waxba hadda firin waxba horan maxaa la dhahay si adigana lagu ixtiraamo oo walaaltinimada loo muujiyo adiguna dadka walaalaha ixtiraam oo walaaltinimadooda muuji ma fahamtay Soomaalida kale oo dhan saasaan kula talinaya qof walba ixtiraamka muuji adigu marka ugu horeysay wanaaga muuji ka bacdi ayaa adigana ixtiraamka iyo wanaaga muujisi kiisi lagu muujinay laakiin si hadda caawiye bari iska ka indhatirtid anuguna waan iska ka indhatirayo xagaagayana ma jirto xaaladeeduna irkaasi isku shareeraysa marka waxaan idin leeyahay oo mar walba aan idin kula talinayo indhaha iska soo tuurinino Somaliland maxaa la dhahaa marka aad leedahay oo ad qof weynta walba qof weyn weeyaan qofku wax soo qoraya meesha ku jira aniga ii soo qoraya Somaliland maxaa la dhahaa marka aad leedahay Somaliland maxaa la dhahaa maxay ka tahay ma isgaliyeel bay ka tahay ma xanuun bay ka tahay ma dhibaato ku haysata maxay ka tahay waxay ka tahay ma fahmayo Somaliland waa la wada garanayaa Somaliland waa dal jira Soomaaliya oo jirin bi Somaliland jirtay iyada calankeeda iyada sidoo Soomaaliya oo keentay maadaama ay dhibaato dhacdo dadkii isfahmi waayeen dagaal dhacay aad iyo aad baan uga xumahay manaan jeclayn inuu dagaal dhaco manaan jeclayn in la isfahmo waayo in la isfahmo oo horumar la gaaro oo maanta waxaan gaari lahayn dalalka ugu sareeya ayaynu maanta gaari lahayn haddii oo caqligan shaqayn lahaa haddii maskaxdu shaqayn lahayd haddii ay xaasidnimada faraha badan ay nagu jirtaa meesha aanay iman lahaynin marka waan ka xumahay hadduu dagaal dhacay oo lagu kala noqday oo qolo walba ay calankeedii dib ula noqotay qaadatay that's no reason marka aad adigu intaad halka soo tagtay tira Somaliland wax la dhaha ma jirto way jirtaa Somaliland walaalo qir Somaliland maalinta tirada Somaliland way jirtaa Somaliland qirtid ay Somaliland adiga ku qiraysa oo inta adigu Somaliland qirsan leedahay Somaliland ma jirto iyaduna inaan adiga ku qiraynin ayaan hubaa waxa la yiri qof ma taqaanay wanaagaaga diiday adiguna kiisa ha ogolaanin bi Soomaalidu tirada wan malanaya marka hadii aad adigu wanaagoodi diidaysid ama aad magacoodi dhamaaba inkiraysa leedahay maxaa la dhahaa ma aqaan indhaha kor marmarinaysid iyaguna indhaha ku kor marmarinayaan kuma arki karaan runtii marka maxaa wanaag lagu sameeyo wanaag waxa lagu sameeyaa walaal qiro qofkan walaalkaaya qiro dalka walaalkaaya ee jiraanka tiin wanaagiisa u qiro magaciisa u qiro wax walba uu sameeyo u qiro saguna adu wanaagaaga iyo waxa uu sameeyay uu ku qiraya maalintaas adigana dib ku eegaya oo ku saxaya laakiin inta aad halka taaganta dafraad la taaganta saguna inuu ku dafrayo ogow waan salaamaya dhamaantiin Soomaali Maxamed oo dhan han walaataan leeyahay wanaaga iyo soo dhaweynta iyo kalgacalka ka wada shaqeeya dhamaantiin baan idin leeyahay intaas aan kaga tagay waan kaga tagay intaas aan kaga tagay dhamaantiin waan salaamaya dhamaantiin